kulan wanaagsan khiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan wargeysyada Israa'iil ayaa soo bandhigaya xogo xasaasi ah oo ku saabsan arrimaha sii xumaanaya ee xiriirka wadamada Masar iyo sidoo kale nidaamka Israa'iil waxa wargeysyada qaar ay tilmaamayaan inay u muuqato in lagu ciyaarayo dab gobolka bariga dhexe haddii labada dhinac ay isgalaan waxaana ay Benjamin Netanyahu u soo jeediyeen qaarkood inuu la yimaado diblomaasiyadda siyaasad ku dhisan oo xasilina taasi oo meesha ka saari karaysa walaaca ballaaran oo ay qabaan qaar ka mid ah dadka Israa'iiliyiinta haddaba xiisadda u dhaxaysa wadamada Masar iyo nidaamka Israa'iil maxaa kor u sii qaaday kadib weerarkii lagu qaaday magaalada Dooxa ee wadanka Qatar maxayse tahay walaaca ay qabaan dadka aqoonyahanka Israa'iiliyiinta sida ka muuqanaysa warbixintan sheeko dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa barnaamijka idinkugu haya khiyaarta inala socotay dalalka carabtuna waxa ay muujinayaan walaaca ay ka qabaan tallaabada ay qaadeen ciidamada badda ee nidaamka Israa'iil kadib markii ay xirxireen dad gaaraya ilaa iyo 500 oo qof oo saarnaa maraakiib kala duwan kuwaasi oo doonaya inay ka tallaabaan go'doominta Israa'iil ay ku soo rogtay magaalada dagaaladu ay ka soconayaan muddada 2 sano waxna dawladahan bayaano kala duwan ay soo saaran ay ku tilmaameen inaan loo qaadan karin tillaabooyinkan oo ka hor imaanaya xeerarka caalamiga ee adduunka carabtu ilaa iyo hadda waxay dhaafilayeen tillaabooyin la xiriira cambaarayn halka Israa'iilna ay falal aad u adag ku dhaqaaqayso taasoo ay isweydiinayaan goorta laga gudbi doono warqadaha cadaadiska ah ee ka soo baxaya dawladahan ku yaala gobolka bariga dhexe ee carabta waxaan sidoo kale inta aan barnaamijkan wada joogno falanqayn doonaa haddii uu Rabbi saamaxo war ka soo baxay maamulka cadan ee wadanka Yemen oo tilmaamaya inay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad military oo kala duwan markab siday oo laga soo raray wadanka Iran kuna socday nidaamka xuutiga ee fadhiya magaalada Sanca ee wadanka Yemen waxa ay ku eedeeyeen markabkan inuu soo maray dhowr dawladood oo kala duwan oo ku yaala geeska Afrika haddaba dawladaha ay ku tilmaameen inuu xeebahooda isticmaalay markabkan ilaa iyo hadda waxa laga ogyahay iyo waliba doodan cusub ee soo baxaysa ee tahriibinta ku saabsan hubkan ay gacanta ku dhigeen ciidanka magaalada Cadan ayaan barnaamijka ku gorfayn doonaa akhyaaray soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara wararkaas ayaan ku qaadaa dhigi doonaa guud ahaanba falanqayntan barrow iyo waliba taxliilinta wararka adduunka aad baad u mahadsantihiin sida muuqanaysa wargeysyada Israa'iil ayaa bilaabay inay walaac ka muujiyaan xaaladda gobolka bariga dhexe marka la fiiriyo isbedelada waaweyn ee hadda dhacaya xiisadda sii kordhaysa ee diblomaasiyadda iyo amniga ku salaysan ee u dhaxaysa dawladda Qaahira iyo nidaamka Tel Aviv ayaa hadda waxay noqonaysaa midda ugu badan ee walaaca uu ka taagan yahay wargeyska afka dheer ee Macaarif ee ka soo baxa nidaamka Israa'iil ayaa tilmaamaya in xiisaddan ay tahay mid aan lagu ciyaari karin oo u baahan si qoto dheer in looga fakaro taas oo muujinaysa culayskiisa marka lagu akhriyo xaaladda hadda la wajahayo oo horey looga heshiiyay sanadkii 1979 wargeyska ayaa oranaya marxaladii oo kale ayay hadda taagan tahay haddii aan arrinta siinaa xal degdega laga gaarin waxa uu leeyahay markii la weeraray magaalada Dooxa ayaa xaaladdu sii adkaatay waxaana hadda muuqanaysa in loo baahan yahay in la maro kanaalo la xiriira dhinaca diblomaasiyadda si loo soo gabagabeeyo xiisaddan wargeyska la yiraahdo Al-Macaarif ayaa tilmaamaya in marka la fiiriyo xaaladda hadda kordhaysa loo baahan yahay in la qaato tallaabooyin ballaaran oo geesinimo leh waxaana ciwaan uu uga dhigay warbixintiisa cillad cusub oo ka dhalatay weerarka Israa'iil ee Dooxa xiriirka Qaahira iyo Tel Aviv oo gaaray heerkii ugu xumaa tan iyo heshiiskii 1979 warbixintu waxay leedahay wargeyska Macaarif ee Israa'iil ayaa shaaca ka qaaday in weerarkii ugu dambeeyay ee Israa'iil ay ku qaaday magaalada Dooxa uu sababay xiisad cusub oo ka dhaxgacday Israa'iil iyo Masar taas oo halis gelinaysa buu yiri xiriirka labada dal oo muddo dheer ku dhisnaa iskaashi nabadeed kadib
wadahadalkii ee lagu saxeexay Camp David sanadkii 1979 wargeyska waxa uu intaa ku daray warbixinta ciwaankiisu ay tahay war xun oo ku saabsan xiriirkan waa markii ugu horeysay tan iyo 1979 ayay leedahay warbixinta in tallaabooyinka dowladda Israa'iil iyo hogaamiyaashu ay yihiin ciyaar culus oo lagu dul ciyaaraya buu yiri dab dushe taas oo ah gorgortanka hadda lagula jira Masar oo aan ahayn mid loo baahan yahay waqtigan sida lagu qoray warbixinta inkasta oo Masar ay 2 sano dagaalka ka soconaya magaalada go'doonsan ay ka qaadatay kaalin istiraatiiji ah oo ay ilaalisay amniga labada dhinac haddana Tel Aviv waxay mar walba ka diidaysaa in dadkaasi loo eriyo dhinaca Masar taasina waa mid xiisada kor u qaadaysa ayaa lagu yiri warbixinta sidoo kale wargeyska ayaa sheegay in xiisada cusub ay sii kordhisay kadib markii Israa'iil ay u muuqatay inay ku hanjabtay inay dib u eegi doonto heshiiska gaaska dabiiciga ah ee ballaaran oo ay dhawaan wada galeen shirkad Israa'iiliya iyo dowladda Masar heshiiskan ayaa muhiimad weyn u leh Qaahira oo wajahaysa dhibaato dhaqaale yaraanta tamarta waddankaasi ka taagan iyo hoos u dhaca dakhliga dowladda Masar ay ka hesho kanaalka Suez iyo dalxiiska oo ay aad ugu tiirsanayd dhaqaale ahaan waxaa la sheegay in markii ugu horeysay tan iyo 1979 madaxweynaha Masar Cabdifitaax Siisi uu si cad ugu tilmaamay Israa'iil dal halis ku ah jiritaanka waddankaasi Masar khudbada uu ka jeediyay shirka madaxda Carabta iyo Islaamka taas oo astaan cad u noqotay baa la yiri heerka cusub ee khilaafka labada dhinac Macaarif ayaa tilmaantay in xaaladdan ay tahay mid walaac weyn la oo gaarsiisay xiriirka Masar iyo Israa'iil mid u muuqanaya hadda inuu ku jiro xaalad u baahan in la badbaadiyo oo ay muhiim tahay dhinacyadu inay si weyn uga fakaraan wadamada Carabta ayaa si weyn uga soo horjeestay tallaabada Israa'iil ay ku xanibtay isla markaana xabsiyada ay ku gelisay dadka la sheegay in ay doonayeen inay ka tallaabaan jabinta sohdimaha Israa'iil ay ku go'doomisay guud ahaanba magaalada go'doonsan ee Gaza oo muddo 2 sanadood ay dagaal ka soconayaan dad 66,000 gaarayana ay ku geeriyoodeen ilaa 3 dowladood oo Carbeed ayaa caawa soo saaray bayaano kala duwan oo ay leeyihiin waxa la gaaray xilligii dadkaasi la sii dayn lahaa Israa'iilna waa inay tixgeliso qaanuunka caalamiga dowladaha boqortooyada Cumaan Qatar iyo Urdun ayaa si adag u cambaareeyay weerarka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen maraakiibta ay la socdeen dad kor u dhaafaya 500 oo qof oo ku wajahnaa marinka Gaza si ay u gaaraan ama ay u geeyaan gargaar bani'aadanimo oo degdeg ah war-saxaafadeed ay soo saareen wasaaradaha amuraha dibadda ee Cumaan ayaa lagu tilmaamay ama wasaaradda amuraha dibadda ee Cumaan ayaa lagu tilmaamay weerarkan inuu yahay mid ka hor imaanaya sharciyada caalamiga iyo kuwa bani'aadanimada iyagoo ku eedeeyay Israa'iil inay si ula kac u adeegsanayso gaajeysiinta dadka iyo xanibaadda gargaarka sida in ay dagaal oo kale ugu jirto oo ay hub ka dhiganayso arrimahan dowladda Qatar oo dhawaan uun raaligelin ka heshay nidaamka Israa'iil ayaa ka mid ah dadka sida weyn arrintan uga hor yimid kana mid ah wadamada dhexdhexaadinta ku jira sidii loo soo gabagabayn lahaa colaadda gobolka bariga dhexe ka taagan dalka Qatar ayaa iyana war ka soo saartay arrintan in tallaabada Israa'iil ay tahay xadgudub ka dhana xeerarka caalamiga ah iyo kuwa halis ku ah xornimada marinbiyoodka iyadoo dalbatay in la sii daayo dhammaan dadka ku jiray doonyaha in si degdeg ah loogu ogolaado gelitaanka magaalada go'doonsan dowladda Urdunna waxa ay ku biirtay baaqyadaasi waxaanay ugu yeertay beesha caalamka inay qaadaan mas'uuliyadda sharci iyo midda akhlaaqeed si loo joojiyo weerarada lagu hayo dadka rayidka si loo ilaaliyo badqabka dadka ku jira safarkaasi arrimaha bini'aadanimada ku salaysan dowladaha Carabta ayaa ku adkaysanaya in gargaarka loo gudbiyo magaalada go'doonsan ay tahay mid muhiim ah oo aan la istaajin karin waxaa xusid mudan in ka badan 50 doonyo iyo maraakiib isugu jira oo ay saarnaayeen 532 dad gargaar caalamiya waday oo ka kala socday 45 wadan inay gacanta ku dhigtay Israa'iil halka ra'iisul wasaaraha nidaamkaasina uu ku tilmaamay
in ciidamadu ay qabteen tallaabo fiican oo ay ku ilaalinayaan sharciyadda waddankaasi Israa'iil sida uu hadalka u dhigay. nidaamka ka dhisan Cadanna ee dalka Yemen waxa ay ku dhawaaqeen caawa in ay gacanta ku dhigeen markab siday hub aan sharci ahayn oo ku sii jeeday kooxda Xuutiyiinta. baaritaano dheer oo ay sameeyeen waxa ay ku xaqiijiyeen in markabkaasi laga soo raray gudaha dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan haatanna uu ku wajahnaa dhinacaasi iyo weliba Sanca. hase ahaatee waxa uu tilmaamay tallaabooyin ay qaadeen ciidamada ammaanka in markabkaasi gacanta lagu soo dhigay. markabkan ayaa ujeedkiisu ahaa inuu gaaro dekedda Al-Xudayda. hase ahaatee markii weeraradu ay ka dhaceen ayuu halkaasi jihadiisii ka bedelay oo dhinaca Cadan u soo weecday. waxaana muuqanaysa baa la yidhi in ciidamada waddanka Yemen gaar ahaan kuwa Cadan ku sugan ay qabteen. waxyaabaha markabkan uu waday ayay ku tilmaameen inay ka mid yihiin diyaaradaha keligood iswada ee dagaalka loo adeegsado, qalabka qalqalgelinta diyaaradaha noocaasi ah, warshad diyaaradaasi samaysa oo Xuutiyiinta gacanta u geli lahayd, qalab sirdoon iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah dhinacyada gaashaandhigga iyo dagaalka sida hadalka ay ku tilmaameen. kooxdan ayaa sidoo kale tilmaantay magaalada Cadan maamulaysa in markabkan uu soo maray dhowr waddan oo kala duwan. baaritaanna ay sameeyeenna ay ku ogaadeen xeebaha uu isticmaalay inay ka mid ahayd xeebaha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ee gobolka Geeska Afrika ku taala. inkastoo aysan dowladda Jabuuti arrintaas ogolaan ama aysan beenin, haddana waxaa muuqanaya in eedayntan ay tahay mid culus marka la fiiriyo warkan ka soo baxaya Cadan. tallaabadan waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka Bariga Dhexe xaaladiisu ay aad u adag tahay, Xuutiyiintuna ay ka mid yihiin dhinacyada sida weyn ula dagaalamaya Israa'iil, halka Cadan oo ay ku sugan yihiin kooxo kale oo hubaysan. hubkan inuu gacantooda gala ay tahay mid kale oo walaaceeda leh. qaartan la socotay intaas ayaan ku gabagabeynaynaa guud ahaanba qaybtan iyo tabintan barnaamijka Barrow Show. waa Cabdicasiis Barrow idile. si aad macluumaad iyo warar kale aad u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. nabadgelyo. Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya, hoolka aroosyada iyo shirarka, maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan, internet xawaare sare leh, wiish iyo amni joogto ah. Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka.